asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhowaada mowduuceena maanta haddiid ku cusubtahay kanaalka fadlan subscribe noo sar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada gambaleelkana furo si barnaamijyadu marka ay soo dhacaanba aad noqotid daawadaha ugu horeeya mowduuceena maanta weli ma aragtay madaxweyne booqanaya sawiro taariikhiya oo ummad kale leedahay waa kuma madaxweynahaasi kusoo dhawow mowduuceena oo dhammaystiran fadlan haddii aad channelkeenna hore aadan ugu jirin fadlan subscribe noo saar kuna soo biir kana mid noqo asxaabta ku xidhan janalka hoyga bulshada waad mahadsantihiin asxaabta qaaliga ah لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا madaxweynaha ruushka oo booqday sawirna kusoo galay qabriga saalixudiin al ayuubi putin sidoo kale wuxuu ruushka ka soo qaaday kitaab qur-aan ah oo 400 oo sano ka hor la daabacay madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putin oo dhowaan safar ku tagay dalka suuriya ayaa booqday qabriga mujaahidkii islaamka ee saalixudiin al ayuubi oo ku yaala dalka suuriya saalixudiin waxa uu ahaa ninkii aan garanayn ninkii dagaalka weynaa la galay kiristankii kana xoreeyay magaalada qudus iyo masaajidkii barakaysnaa ee al aqsa sidoo kalena kiristanka ka eriyay dalka suuriya mujaahidkii saalixudiin ayaa mar uu qudus xoreynayay wuxuu yidhi weligiin al aqsa qaadan maysaan inta raggoodu u nool yahay aqoon-yahan islaam ah oo arrintan falaqeeya ayaa twitterkiisa ku qoray arrintii putin booqashadu ku tagay qabriga saalixudiin al ayuubi waxa uu la micno tahay ayuu yidhi waa kan saalixudiin oo qabrigaagii ayaan dul joognaa meeyo raggaagii aqoon-yahankan ayaa hadalka ula jeeda taageerida ruushka uu bashaar al asad ku siiyo dagaalka suuriya iyo xasuuqiya halkaas ka socda ee sunniga lagu hayo sidoo kalena madaxweyne putin ayaa booqday masaajidka taariikhiga ah ee loo yaqaano al-jaamic al-umawi waxa uuna masaajidka u keenay kitaab qur-aan ah oo ruushka la keenay ku dhowaad nus qarnigii 400 oo sano ka hor laga joogo intaas ayaan kusoo gabagabeynaya dhacdadii putin mowduuceena saaxiibayaal ee fii amaanillah